السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada asxaabta ku xiran channelkeena Cabdalla Show. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee aad u abuuri kartaa YouTube channel. YouTube channel inaad abuurato ma aha wax adag, kaliya waa inaad leedahay Gmail account. Haddii aad leedahay Gmail account waad ku xiri kartaa sign ayaa ku dhigi kartaa YouTube-kaaga. Marka maanta waxaan casharkeena ku soo qaadan doonaa sida loo sameeyo Gmail-ka iyo sida loo xiro YouTube-ka si aad u abuurato YouTube channel. Nala socda asxaabta. Waxaa markii waad soo kacsanaysaa any browser aad isticmaasho oo ku jiro computerkaaga ama telefoonkaaga. Anigu hadda waxaan isticmaalaynaa Google Chrome. Marka aan Chrome ku soo dhufto marka aan YouTube-ka ahayn saray u soo noqonaya kadib waxaan dhigaa sign in marka dhiis waa inaad leedahay Gmail. Haddii aad Gmail leedahay Gmail-ka uu ku weydiiyo ayaad gelinaysaa. haddii aadan lahayn Gmail waad abuuraysaa. marka maad casharkeena wuxuu ku saabsan yahay si aan u abuuri karnaa YouTube channel. Waasta waxaan sameynaa Gmail-kii dan waxaan ku xijinaynaa waan ku xiraynaa YouTube si aan u abuurno YouTube channel. remove iska dhigana account-kan another account aan isticmaalayna on abuurayna create account. markii aad rabto inaad samaysato marka hore Gmail wuxuu ku weydiinayaa magacaaga koowaad oo first name-ka iyo wuxuu kale ku weydiinayaa last name-ka. halkan waxaa gelinaysaa username-kaaga, halkan waxaa gelinaysaa password-ka, confirm adna password-ka ku celinaysaa. marka asxaabtan la socda waa mid easy way aad ay u fududahay ma aha wax adag. marka asxaabta nala socda first name-ka ay gelinaysaa magaca doonto iyo last name-kaaga, then waxaad username-ka ay gelinaysaa also sidoo kale password-ka ayaad gelinaysaa. waa wax aad iska fudud. haddii aad samaysato Gmail-ka markaas waad ku xiri kartaa YouTube-kaaga waad samaysan kartaa YouTube channel. waa mid aad u fudud ma ahan wax adag. markii aad first name last name ka username-kaaga password-ka aad soo geliso wuxuu ku weydiinayaa qaabkaaga u soo muuqanayaa. markuu qaabka u soo muuqdo wuxuu ku weydiinayaa kow inaad geliso number-kaaga si uu verify kugu dhaho oo code kuu soo dhaco code aad u geliso. then also kale wuxuu ku weydiinayaa recover email address. waxaad gelinaysaa si hadhow kaalmo aad recover u dhahdo email-ka waad gelinaysaa email address kale. waxaad kaloo gelinaysaa day maalinta aad dhalatay iyo month iyo year-ka also gender-ka ayaad gelinaysaa. markaas markuu kuu samaysmo kadib waxaad ku xiraysaa YouTube-kaaga si aad u abuurato YouTube channel. marka ma aha wax adag. waxaad gelinaysaa phone number-kaaga kadib code ayaa kuu soo dhacayo. markii aad geliso number-kaaga code ayaa kuu soo dhacayo. code-kaas oo ku soo dhici doonaa telephone number-kaaga waad gelinaysaa. markii aad gelisid sidaas ayuu kugu samaysmay Gmail. waxaad ku xiraysaa YouTube-kaaga. waa mid aad u fudud ma aha wax adag. muhiimadda aad number-ka u gelinayso waa inuu verify kuu noqdo si hadhow oo Gmail-kaaga haddii dib loo soo celinayo kuu weydiiyo number-kaaga waana waajib badanaa ina uu ku weydiinayaa. markii aad soo samaysato
akoonkii oo Gmail markaad soo abuurato qaabka ayuu soo muuqanayaa. kadib qaabka markuu soo muuqdo click ayaa ku siinaysaa, waxaa ka dooranaysaa create studio ay ku dhufanaysaa. create studio marka aad ku dhufato qaabka ayuu soo muuqanayaa. waxaa kuu soo bixayso you must create a channel to upload videos. marka aad ku dhufanaysaa create channel, halkaan ay ku qoran tahay create channel ayaad click ku siinaysaa. markii aad ku siiso click wuxuu ku weydiinayaa Gmail-ka haddii markaad soo samaysay magaca ayaa kusoo samaysatay. wuxuu ku dhahayaa option wuxuu ku siinayaa inaad magaca iska beddesho daarad ama magaca aad ku dhafato. marka magacii aad iska beddesho magaca aad kusoo samaysay Gmail-kaaga aad YouTube-kaaga rabtid inaad magaca kala u baxsato ma wax way iska fududahay, saameyn kuma yeelanayso Gmail-ka aad soo samaysatay. magaca ku soo muuqanayo iyo magaca ku soo muuqanayo channel-kaaga. marka channel-kaaga magacaad u tahay aad u yeelan kartaa, aad ku samaysan kartaa magaca rabta u baxsan kartaa. marka hadda channel aan abuureyno magaca ayaan u bixinaynaa. magacan ayaan u bixinay Somali Editors. meesha markaa use terms aad adeegsan kartaa oo name yes. markii uu ku weydiiyo qaabka markuu soo muuqdo magaca ayaa gelinaysaa. magaca doon rabto inaad u baxsato YouTube-ka aad abuuranayso, YouTube channel-ka aad abuuranayso. kadib magaca ayaan u baxsanaynaa Somali Editors. kadib create channel ayaan ku dhufanaynaa. automatically hadda wuu noo sameysay, wuu noo abuuran yahay YouTube channel. YouTube channel hadda wuu noo abuuran yahay. waxaa soo geli karnaa videos. marka video soo gelinayna waxaa ku dhufanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay upload video ayaad hadhow soo gelinaysaa. optionadan videoska meesha videos option hadda video ayaa kasoo muuqanayo. playlist waxaa waaye inaad videoyadaada aad u samaysato folder ahaan videoyada aad soo geliso YouTube-kaaga ilaa hal ma isku xigto, macnaha one mawduuca ka dhigto si hadhow qofkii rabo koorsada ama video koorsooyinka aad kasoo duubto casharaantaas inuu qofka hal mar wada daawado una sahlanaato. meeshaan ka live stream-ka iyadana waa live-kii community waa meeshii comments-ka aad u basti gareyn karta asxaabtaada. meeshaan waa channel oo channel-ka hadda ku dhufto option badan ayaa kuu soo baxayo. optionada kuu soo baxayo waxaa ka mid ah status featureska inaad verify gareyso YouTube-ka aad samaysatay, channel-ka aad abuuratay. upload default oo asana ku qabanaya faa'iido kale oo ah inaad geliso privacy policy aad ileensii title-ka ayna geliso description-kaaga. branded meeshaan oo asana wuxuu ku qabanaya inaad watermark ku soo darto videoska hadhow watermark oo kasoo muuqdo video marka la daawanayo qofkii kale ku siiyeen oo subscribe ku saaro. advanced iyo waxa waaye wuxuu ku qabanaysaa inaad iyo qorshe waxyaalo fara badan in ay country aad gelisid channel keywords-kan waxaa waaye inaad gelisid channel-kaaga magaca. hadhowna channel keywords qofka ku sahlanaa hadhow haddii qof kale baarayo channel-kaaga way u sahlanayay. haddii la geliyo hore ayuu kasoo qabanayaa. mar walbana waad ka baaraysaa. haddii aad abuurato YouTube channel mar walbo search ayaa dhehaysaa magacaaga si uu noqdo hadhow magacu haddii mar walba la geliyo hore kasoo muuqdo. okay marka insha Allah sidii videos loo soo geliyo iyana waxaan kasoo diyaarin doonaa another video. marka asxaabta haddii aad ka hesho mawduucan please la garay una share garay asxaabtaada. kuna soo dhawaada channel-keen Cabdalla Show oo aan kugu soo gudbin doono barnaamijyo aad u fara badan ku saabsan dhaga tiknoolajiyadda.